Reen wuu ka soo bixiyay doontii biyaha, kadibna webiga geeskeeda ayuu soo dhigay. Markii ay biyaha ka soo baxeen, ayay Kaana waxay dareentay dareen walwal ah. Waxay kalsoonideeda iyo badbaadadeedaba gacanta ka saaraysay 2 qof oo maalin waxaan dhammayn aysan aqoon. Si kastaba ha ahaatee, Kaana ma aysan haysan choice, sababtoo ah hooyadeedii way dhimatay, Michiina way dhimatay, aabaheedii kii ahaa kii koriyey sidoo kalena adduunkan keenay wuu noolaa, balse Kaana sideedaba ma uusan rabin. Waxay dareentay cidlo saa'ida, si kadis ayayna xibilowday inay u dhacdo. Is-ilaali ayuu ku qayliyay Toshihiro. Kaana waxay dareentay gacanteedii oo si xoog loo soo qabtay. Reen ayaa istaajiyay. Markay eegtay wuxuu ku dhahay is-ilaali, markaasna si fiican ayay u istaagtay, laakiin weli waxay sii dareemaysay taabashadiisa. Waan fiicanahay ayay tiri Kaana. Reen markaasi gacantiisa uu ka qaaday. Kaana way aragtaa wejigiisa daboolan, laakiin way dareemaysaa inuu dhoola cadeynayo. Hore ayay u socdeen, wayna istaageen markay arkeen kayn aad u weyn oo cufan. Markaasi Kaana waxay ku tiri, meeshan miyaa loo baahan yahay inaan galno mise waddo kale ayaa loo marayaa meesha aan markii hore ku jihaysnayn. Toshihiro madaxiisa ayuu ruxay, wuxuuna dhahay ninka kuu samayn lahaa gloveska meesha ayuu ku nool yahay, waa inaan galnaa. Markii uu Toshihiro horey u galay kayntii, Kaanana way ka daba gashay isaga ayadoon waxba dhahaynin. Markii ay socoto gadaal ayay ka maqashaa sharqanta Reen oo gadaasheeda socdo. Way rajayn lahayd inaysan isaga agagaarkiisa walwal ku dareemaynin, laakiin way ku dareemaysaa. Asaga wuxuu u egyahay qof siro qarinaya, siro aad u khatar badan. Aamusnaan ayay markaasi ku socdeen in muddo ah. Qorraxdu waxay soo baxday saacado ka hor, haddana waa duhur, laakiin kaynta ayaa iftiinka qarinaysay. Markii ay ku sii fogaadaanba, mugdi ayay noqonaysay. Ugu dambeynna Reen ayaa qori shiday. Markaas ayuu wuxuu yidhi xagee u soconnaa oday haween. Toshihiro ayaa isaga oo dhibsanaya u jawaabay, wuxuu dhahay waan helaynaa waddadeena, hadda waad iska tegi kartaa. Reen ayaa u soo jeestay wuxuuna dhahay akhlaaq xumo ayay iga noqonaysaa haddii aan oday cajuus iyo haweeney yara kayntan kaga tago. Sidoo kale waxaan nasan karaa markaan ogaado inikoo nabad qaba inaa meeshiina tagteen. Kaana waxay aragtay Reen oo markaasi soo eegaya, wayna ka sii jeesatay. Waxay la yaabtay sababta uu si degdeg ah u noqdo qof wanaagsan, laakiin way iska daysay walwalka. Waxaa laga yaabaa inuu isku dayo inuu caawiyo. Taasi looma baahan doono ayuu dhahay Toshihiro. Maya, waan ku indha adeegayaa ayuu dhahay Reen. Hadda xagee ayaan u soconnaa? Toshihiro wuxuu rabay inuu murmo, laakiin Kaana ayaa fariisatay gacan saartay, waxayna tiri aan aragno waxa uu socdo. Markaasuu yidhi Toshihiro wax fiican kolba uma socdo, laakiin murankii wuu iska daayay. Kadibna Reen wuxuu u sheegay meeshay u socdeen. Kaana walwalkii way iska daysay, inkastoo aysan weli Reen si buuxda aysan u aaminaynin, laakiin ugu yaraan wuxuu wataa seef, maadaama ay hadda taarget u tahay Yukayda, sidoo kalena Toshihiro oo uu sixir leeyahay, inkastoo uu sii baaba'ayso. Kaana maska codkiisa ayay maqashay, wayna cabsatay. Markaas Reen oo ag fadhiyay ayaa gacanta garabkeeda saaray, wuxuuna ku dhahay waa mas-uul. Markay haddana maqashayna gacantiisa ayay xoog u qabsatay, isna gacantiisa kama u qaadan. Haddii ay aad kuu dhibayso ayuu dhahay soo seeftii soo saaraya, kadibna hawada ayuu kala jaray. Markaasi Kaana aad ayay u naxday, gadaal ayayna u dhacday markay maqashay wax horteeda ka soo dhacay. Kadibna iftiinka wuxuu qabtay dhulka mas yaala oo markaasi la kala gooyay. Hadda caadi ma dareemaysaa ayuu weydiiyey Reen. Markaas waxay tiri aad ayuu iigu dhawaa, hadduu i qaniin lahaa ka waran, kadibna i sumayn lahaa. Markaas ayuu ku yidhi Reen intaasoo dhanba midna ma uusan samayn. Toshihiro hore ayuu u soo dhaqaaqay isagoo markaas xanaaq muujinayo. Reenna wuu ku qoslay, wuxuu dhahay hore ma u socon karnaa fadlan? Haa, waa sii socon karnaa. Markii ay gabadhan quruxda badan gacanteeda sii dayso ayuu dhahay Reen isagoo ciyaaraya, kadibna Kaana way sii daysay. Kaynta ayay ku sii fogaadeen ilaa ay markaas arkeen buul yara oo kaynta ku dhex yaalo. Buulkaasi darbiyadiisa waxaa ku yaalay qoraallo qadiimiya oo ifaya, sidoo kalena geedaha ka agdhow waxay ahaayeen kuwo cagaar oo tiradii ka batay. Markaas waxaa ka laalaaday alaabo qurxan. Markaas ayay ahayd markii Kaana garatay ereyadani inay ahaayeen ereyo sixir ah. Toshihiro ayaa meesha u horgalay, kadibna Reen ayaa Kaana wuxuu u sheegay inay ka daba gasho.
markii ay soo gashay waxay aragtay laambooyin tiradii ka badatay oo meesha ku xiran. Waxay sankeeda bilaabay inuu ursado urar badan oo kala duwan, waxayna bilowday inay qufacdo markii ay sankeeda galeen. Kadibna madaxeeda waxay u jeedisay miis meesha yaala. Waxay aragtay markaasi nin cajuusa oo miiska ku fadhiya, buugtiisana ku jeeda oo wax ku qoraya baal guduudan ifayo. Wuxuu sidoo kale qabay maro guduudan wax ku yaalaan. Markay si fiican u fiirsana waxay garatay inay tahay luuqad qadiimiya. wuu soo eegay markii u soo dhawaatay, iyadana markaasi neefta ayay cishatay. asaga wuxuu lahaa weji dheer oo markaasi laalaabyo leh, tintiisu way dhaadheereed wayna cadeed, indhihiisa mid ka mida way xidhneed, midda kalena waxay ahayd mid jaala oo markaasi ifayso. maxaa rabtaa ayuu weydiiyey isagoo xanaaqsan. kaanaga gadaal ayay u baxday iyadoo ninka ka baqayso. saacadihii lasoo dhaafay yokai badan ayay la kulantay. asaga ma laga yaabaa inuu mid yahay? hoos soo eeg ayuu dhahay Toshihiro. ninka markii hoos eegay wuu dhoola cadeeyey. wuxuuna lahaa 8 ilkood oo kulligoodii jaalo yihiin oo waaweyn. Toshihiro ayuu dhahay. Toshihiro wuu eegay. Koro ayuu dhahay. xagee baad jirtay saaxiibkaygii ayuu dhahay. maxaasaan kaa dhigay? waa sheeko dheer. waxaan u baahanahay galoofisyo kuwa khaaska ah samaysid. Koro dhoola cadayntii way ka ba'day. markaasna labadii ayuu eegay asagoo xanaaqsan. wuxuu dhahay midee weeye? kadibna wuu ursaday. wuxuuna dhahay waa gabadha. haa, Toshihiro ayaa ugu jawaabay. Koro kursigiisa ayuu ka gadaal ugu tiirsaday. kaana ayuuna eegay isagoo farihiisa miiska ku garaacayo. kaana waxay u malaysay inay ishiisa kalarka ka bedelmay. kadibna wuxuu yidhi waa la habaaray iyada. lacag fiican baan ku siinayaa ayuu dhahay Toshihiro. dhibaato badan ayaa darteed u gelaysaa. maxaa iyada isku tihiin? Toshihiro wuu aamusay. kaanana isaga ayay eegtay iyadoo welwelsan. ayada ahayd inay su-aashan weydiiso sababtoo ah waayo uu iyada u caawinayaa. waa gabar dhibaataysan oo caawinaad u baahan. anigana caawinaadaada ayaan u baahanahay. galoof igu sameey gacanteeda ayuu dhahay. ma hayo alaab igu filan oo markaasi aan ku sameeyo. muddo ayaa ka soo wareegtay inuu qof i weydiisto galoof khaas ah. Toshihiro wuu xanaaqay. waxaa laga yaabaa bahalada yarka inay qaar ka mida meelaha joogaan. xabad qabo kadibna haddii aad ilowday aniga waan gaboobay waana sii indhabeelayaa. ma ogaarsan karo. maxaa la ogaarsanayaa ayay weydiisay kaana. Rin ayaa horey u soo baxay. waxaa meelahan ka dhow webi kaasoo caan ku ah inuu hooy u yahay Kaaba. kuwaas ayaa rabtaa soo ma ahan? Koro ayaa hadlay. waa runtaa, laakiin waa kuwo si fudud loo qaban karo ayuu dhahay Rin. waxay madaxa ku leeyihiin depression, saas darteed biyo ayaa ka buuxo. markaas biyaha ka saar kadibna maba ay dhaqaaqi karaan. sidoo kale waxba ma dhibaateyn karaan. waa xayawaano yaryar oo jilicsan oo edab leh. saas darteed wixii aan oranayay intuusan qof si edab daraa iga jiirin ayuu dhahay Koro isagoo hadalka ku kala jarayo. kaana way naxday. ninka hortaagan wuxuu eegay mid daciifa. isma aysa dhahayn cod sidaa u weyn buu leeyahay. waxay noqdeen kuwo horumarsan. caqli ayay yeesheen. waxay isticmaalaan waxyaabo bira si ay u ilaaliyaan biyahooda. sidoo kale arrinta aad tiri oo ah inay daciif yihiinna waxaa markaasi lagu bartay buu yidhi qof kasta oo webiga dhaafa inay si aad u xun u soo weeraraan iyagu. haddaba sidee u qaban karnaa ayay tiri kaana. odagii garbihiisa ayuu raxay. wuxuu yidhi kuma caawin karo. keliyaa taharigeeda ii keen. anna waa kuu samaynaya goloofka. Rin ayaa gacanteeda taabtay. wuxuu yidhi kaale iska tagnee. aniga ayaa ku caawinayay si aan u soo qabanno. waa laga yaabaa inay hormareen laakiin seeftayda kama badbaadayaan. kaana si uu shaki ku jiro ayay markaasi u eegtay laakiin waa iska raacday. odagii ayaa Toshihiro eegay wuxuuna ku dhahay waa inaan wada hadalnaa. Toshihiro madaxa ayuu ruxay. wuxuuna dhahay haye waan wada hadli doonaa kadib markii aan kuu keeno Kaaba.